dalkan wuxuu ku jiraa chapter 7 weli chapter 7 anagu kamayna bixin haddii anagu aan qaban weyno oo xildhibaanadu qaban waayaan oo gudoonkii la qaban waayo oo madaxweynuhu noo qabsoomi waayo oo dowlad goboleedyadu noo qabsoomi waayaan waxaa khasab ah in beesha caalamka ay garbaduub noo qabato waa haddii weli danna laga leeyahay haddii aan danna laga lahayna in la sii daayo haddii la sii daayana dee qof walba tuuladiisii iyo xoolihiisu iska raacanaya qarnimadeena halkaas ayay nooga burburaysaa iyo dowladnimadeena. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyo Ramadaan mubaarak. Marka maanta inta wax ku arkaynaa chapter 7 xita chapter 7kii oo hadda uu xaajiga soo hadal qaaday baan inta ku arkaynaa. Marka chapter 7 waxa weeye waa sharci ee ku dhisanta United Nationska qaybta 7aad way marka waa ka soo egtahay marka waxa weeye dhowr qodob ay ka kooban tahay qodobka 39aad ilaa 51aad marka chapter 7 waxa la dhahayo waxa weeye waxay quwad siinaysaa golaha amniga inay wax ka qabtaan rabshooyin iyo dagaalo meel ka jirto marka golaha amniga waxa weeye chapter 7 waxay isticmaalaan inay wadamooyin ay rabsho ka jirto kale qaarkood inay ku soo rogaan cunaqabatayn oo dadka rabshada ee dagaalkooda in la cunaqabatayo military ahaan ama dhaqaale ahaan meelo qaarkood waxa weeye wadamo qaarkood ka jirto rabsho dagaal waxaa loo diraa ciidankan nabad ilaaliyaha la dhahayo oo koofiyada buluugan ayadoo la isticmaalayo chapter 7ka meelo qaarkood waxa weeye wax lagu sameeyaa military intervention hal dhahayo marka waxa weeye wadamada qaarkood oo rabshada wada baa la weeraraya oo military baa loo soo diraya ayadoo chapter 7ka la isticmaalayo marka qaarkoodna waxa weeye ayadoo chapter 7 la isticmaalayo baa dad oo rabshada kuwa rabsho ogayaasha ah ama kuwa oo xasuuq dadweynaha u geystay baa ayadoo chapter 7 la isticmaalayo maxkamad la soo istaajiyay inta ujeedaan marka chapter 7ka waxa la dhahayo muddo dheer bay soo shaqeynaysaa oo wadamo badan baa lagu qaaday hada wadanka ugu horeeyay oo chapter 7 la kor saaray waxa kamid ah Korea waqooyi waliba kuwa oo shuuciyiinta ah baa lagu qaaday marka kuwa shuuciyiinta ah North Korea la dhahayo waxay soo weerareen Koreada kale soo weerareen marka United Nationskii baa waxa weeye golaha amniga waxay gaareen go'aan bay gaareen oo go'aankaas waxay ahayd in halkaas la geeyo ciidan oo Mareykan oo markaas weerarta kuwa kale oo wadan kale oo chapter 7 lagu soo rogay waxa kamid ah Iraq markay soo weerareen Kuwait baa way chapter 7kii baa lagu soo qaaday oo marka waa loo sheekay baxay weydiideen inay ka baxaan Kuwait weydiideen marka way golaha amniga baa go'aan bay gaareen oo go'aankaas waxay ahayd in Iraq la weeraro oo laga saaro Kuwait marka arintan chapter 7ka la dhahayo waa arin aad u fulxun way wax fiican ma marka wadamada qaarkood waxa weeye ayadoo chapter 7ka la isticmaalayo baa aad loogu dadaalaa wadamada qaarkoodna ayadoo chapter 7ka la isticmaalayo baa wax badan loo qaban hadda ka soo qaad dagaalo sokeeye oo ka dhacay Yurub waxa weeye si dhaqso ah baa lagu xaliyay hadda Yugoslavia iyo Albania iyo Kosovo waxa weeye dagaaladii sokeeye oo ka dhacay si dhaqso leh baa lagu xaliyay ayadoo la isticmaalayo chapter 7ka laakiin wadamada kale oo waliba u badan yihiin Afrikaanka waxa weeye si fiican loogu dadaalo marka maanta ka soo qaad wadan oo aad u dhawaataysan waxa kamid ah Haiti maanta waxa weeye wadankii dhan waxa la wareegeen shufto iyo ciyaal suuq marka waxay ahayd in chapter 7ka lagu qaado baahayd oo askar loo soo diro oo dhibaatadaas oo dadweynaha saaran in loo gargaar baahayd laakiin lama gargaarayo meesha waxa weeye waxa ka jirta cunsurinimo baa ka jirta marka wixii oo cadaan iyo waxaas waa loo dadaalayaa wixii Afrikaan iyo wixii kale korka madow waa loo dadaalayaa waqtigii baa looga ciyaaraya hada chapter 7ka waxa la dhahayo waa arin la isku gaado way waa arin aad la isku gaado way marka chapter 7ka wadamada ka qayb galaya waxa weeye waxay isticmaalaan inay arimahooda ay horumariyaan hadda ka soo qaad AMISOM kale wadamada soo direen oo kale Soomaaliya waxba ma qaban run hadii la sheegayo
waxa weeye mushaarkooda halkaas ku sugtaan haddana waxa weeye ayaga laftigood baa al-shabaab hubka siiyaba marka waxa weeye arrintan chapter 7 la dhahayo waa meel la isku gaado wey haddana dowladda Mareykanka baa waxay isticmaaleen chapter 7 waxay u isticmaaleen Gaddafi markii Gaddafi oo la tuuray oo dowladdiisa la burburinayay chapter 7 baa lagu soo rogay oo diyaaradahoodii waxa weeye waa la soo riday oo marka waxa weeye chapter 7 waxa weeye waa arrin la isku gaado wey haddana intaas keliya ma aha xitaa dowladda Mareykanka mararka qaarkood dad bay laayaan oo argagixiso iyadoo ay sameynayaan bay dad laayaan asan ugu jeedaan oo kale halkaas waxa lagu dilay nin oo Qaasim Suleymaan la dhaho waa kana masuulkiisa wuxuu ahaan jiray generaal wuxuu ahaan jiray ciidanka Iiraaniyiinta marka wuxuu mar la kulmay prime ministerka Iraq markuu kulankii uu soo dhameystay oo u socda airportkii baabuurkiisii jidka lagu qarxiyay oo xasaas sameeyeen Mareykanka dowladda Mareykanka marka saas ninkaas waxa la dilay ayadoo chapter 7 la isticmaalayo marka chapter 7 waxa la dhahayo wax la isku gaado wey wax fiican ma chapter 7 waxa la dhahayo iyo fikrad kale oo la dhaho right to protect saan ugu jeedaan waxa weeye waxa loogu talagalay wadamada qaarkood in xornimadoodii la daciifiyo oo gacan dhaaf shisheeye lagu sameeyo marka chapter 7 iyo right to protect fikradda la dhahayo oo United Nations ay hirgeliso mar walba waxa weeye waxa loogu talagalay inay halkaas ka jirin wada sinaan dowladeed inay ka jirin baa loogu talagalay marka waxa weeye waxaan wax la fududeysto ma sidee wadankan chapter 7 looga saari karaa waxa sida ugu horeysa maanta Soomaaliya dib ugu horeysa maanta wadanka jira waxa weeye waa siyaasad weyn siyaasadda maanta wadanka jirta waa siyaasad foolxun weeye marka ayada baa suurtagal ka dhigtay in rabshay dagaal ka jirto wadanka marka maanta waxa dowladda ku sheegay la dhahayo nabad kuma filna dowladda ku ciyaareen waxa weeye dadaalka hore loo sameeyay ku ciyaareen baleela fiirsada waa kana dacwada laga qabo waa kuwana waxa dowladda ku sheegay keenin ayaga yaqaan ayaga diray waxa lagu dagaalamayaa waa risaastii dowladda ee qaybta 720aad risaasteedii maanta barwile iyo ilaa xal lagu ridayaa shabaab wax lagu ridana waa la leeyahay hal baalooton shabaab ku ridana waa laana dad shacab oo masaakiina iyo magaalo qaraxyo ka dheregtay oo awal al-shabaab qaraxyo kala daalay ayaa maanta duulaan loogu daray waxa ugu darayaana waa dadkii wixii dadku ka dhaxeeyeen ayaa ugu daraya dowladnimada lagu ciyaaray amaanka lagu ciyaaray marka waxa uu fiican oo maanta oo hadii la wadankan in chapter 7 laga saaro waa in siyaasadda la wanaajiyo marka siyaasadda la wanaajiyo marka baa waxa kale oo dhibaatooyin kale oo wadanka jirta baa markaas wax laga qaban karaa marka maanta Soomaaliya United Nations waxa ku soo rogeen resolution yaal badan ku soo rogeen waa kuwana soo jeedaan liiskaas oo dhan baa lagu soo rogay marka dowladda marka ay kulli mid ay uga soo baxdo resolution yadaas waxa weeye waxa loo yeeriyaa United Nations baa loo yeeriyaa ANSOM oo Soomaaliya waliba xafiis ku leh markaas ayaga review sameynayaan baaritaan bay sameynayaan report baa loo qorayaa marka reportkii waxa loo geenayaa golaha amniga marka halkaas waxa lagu fiirinayaa inay Soomaaliya ay ka soo baxeen shuruudihii oo loo qaaday la chapter 7 marka Soomaaliya markay ka soo baxeen chapter 7 shuruudihii la kordhigay markaas baa wadankii laga qaadi karaa chapter 7 daawadayaal barnaamijka halkaas ku eega marka la dhahayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyo salaati dambe